warweyn oo xaggaas iyo Venezuela ka soo yeeraya ayaynu u galeynaa gordhow oo ku saabsan qaabkii uu dhacay weerarkii Mareykanku ay ku qaadeen 3 bishan wadankaasi laakiin xabsigii uu ku jiray madaxweynaha wadankaasi Venezuela ayuu fariin ka soo diray aynu eegno wararkii ugu dambeeyay amoortani madaxweynihii xilka laga tuuray ee Venezuela Nicolas Maduro ayaa toddobaad kadib markii la xiray waxa uu sheegay in xaaladiisu ay wanaagsan tahay isagoo fariin ka soo diray xabsiga federaalka ee Brooklyn ee magaalada New York Maduro ay hadalkiisa wuxuu ku yiri waan fiicannahay wiilkiisa ayaa isna muuqaal uu baahiyay xisbiga talada haya wuxuu ku yiri waxaynu nahay halgamayaal Maduro iyo xaaskiisa Celia Flores ayaa tan iyo isniintii lagu hayaa xabsiga federaalka ee Mareykanka kadib markii maxkamad Mareykanka ku taal la hor keenay iyadoo loo haysto dacwado la xiriira ka ganacsiga maandooriyaha eedeymahaasi oo ay diideen isaga iyo xaaskiisa Maduro iyo xaaskiisa ayaa la filayaa in mar kale maxkamadda ay ka soo hor muuqdaan 17 bisha March Maduro ayaa la xiray 3 bishii Janaayo ee sanadkan intii lagu jiray howlgal ay fuliyeen ciidamada gaarka ah ee Mareykanka kaasi oo ay barbar socdeen duqeymo cirka ah oo lagu qaaday caasimadda Caracas ee Venezuela maalintii Sabtida boqolaal taageerayaasha Maduro ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka Caracas iyagoo watay boorar ay ku qornaayeen dib ugu soo celiya isla markaana ku dhawaaqay hal ku dhigay muujinaya taageero ballaaran oo Maduro ay u hayaan banaanbaxayaasha ayaa la sheegay inay sii wadi doonaan mudaharaadyada maalin kasta ilaa Maduro laga soo celiyo dhinaca kale dawladda waddanka Mareykanka ayaa waxa ay ugu baaqday muwaadiniinteeda inay si degdeg ah uga baxaan Venezuela iyadoo sheegtay in xaaladda amniga dalkaasi ay tahay mid aan xasiloonayn hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo si tartiib ah duulimaadka dayuuraduhu ay u bilaabanayaan waddanka Venezuela waaxda amuuraha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in kooxaha hubaysan ay wadooyinka xiranayaan isla markaasna baabuurta ay fatashayaan dawladda Venezuela ayaa ka jawaabtay digniinta Mareykanka iyadoo ku tilmaamtay mid ku dhisan sheekooyin mala awaal ah oo aan jirin isla markaasna waxa ay sheegtay in dalka uu ku jiro xaalad nabad iyo xasilooni buuxda ah waa hagaag daawadayaal haatan waxaynu soo gaarnay xubinta ugu dambeysay ee barnaamijka waa xubinta falanqaynta taasi oo aan ku soo qaadano warbixinada iyo xogaha ay bixiyaan wararka arrimaha militariga ku istiraatiijiyadda ciidamada siyaasadda diblomaasiyadda iyo sirdoonka sidoo kale waxaan ka malan xubintan oo ku soo qaadanaa kuna qaadanignaa arrimaha waaweyn kuwaasi oo warbaahinta caalamku ay wax ka qorto amaba ay baahiso xubinta maanta waxaan ku soo qaadanaynaa faahfaahin cusub ayaa laga helay ee weerarkii lagu qaaday Venezuela iyo xarigii madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro iyadoo la sheegay in Mareykanku uu adeegsaday hub qarsoodi ah oo sababay xaalado lama arag iyo lama maqal ah hadaba warbixin iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladan waxa inoo haya wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh xogtan cusub ee soo baxday ayaa tilmaamaysa in Mareykanku uu adeegsaday hub qarsoodi ah oo aad u awood badan kaasoo askarta Venezuela jilbaha dhulka u dhigay iyaga oo la kulmay argagax iyo dhiiga ka yimid sanka iyo afka sida ay muujinayaan faahfaahinta cusub ee ku saabsan wixii dhacay habeenkii la qabanayay madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro intii lagu guda jiray weerarkii lagu beegsaday hoygiisa ku yaala magaalada Caracas caasimadda dalkaasi Venezuela xogtan waxa lagu shaaciyay marag fur uu bixiyay mid kamid ah ilaalada madaxweynaha Venezuela xogtaasi oo xitaa baraha bulshada ay ku daabacday afayeenka aqalka cad mid kamid ah ilaalada ayaa sharaxay sida ciidamada Mareykanku ay u awoodeen in ay laayaan boqolaal dagaalyahan ah iyada oo aanu hal askari laga dilin ciidamada weerarka ah waxa uu sheegay in ciidamadu ay adeegsadeen tiknoolajiyad aan horey loo arag sida uu qoray wargeyska New York Post waxaan ku jirnay ilaalo si lama filaan ahna dhammaan nidaamyadii raadeerkayaga ayaa shaqadii joojiyay iyada oo aanu wax sabab ah la garanaynin diyaarado aan duuliye lahayn drones ah ayaa si tiro badan u soo muuqday iyada oo dul heehaabaya goobaha aan ku sugnayn ma aanan ogeyn sida aan uga falcelino qofka xogtani bixinaya ayaa sheegay in daqiiqada kadib 8 diyaaradood oo qumaatiga u kaca ama helicopter ah ay kali ah ay soo muuqdeen sida uu qiyaasay waxaana ka soo daatay ilaa 20 askari oo Mareykan ah askarta tirada yar waxa ay ku hubaysnaayeen tiknoolajiyad horumarsan oo ka sareysay hubka caadiga waxay ahaayeen kuwa aad u horumarsan dhinaca tiknoolajiyadda mana aysan u ekeyn cadow aan horey ula dagaalanay ayaa ku daray waardiyuhu waxa uu ku tilmaamay wixii dhacay
in uusan ahayn dagaal balse uu ahaa xasuuq. waxay ahaayeen boqolaal, annaguna fursad ma aanan helinin. waxa ay ridayeen rasaas culus oo degdeg ah, waxaana ay u muuqatay in askari kasta uu ridayay 300 oo xabo daqiiqadii. qofka goobjooga ahaa ee macluumaadkani bixinayay waxa uu sheegay in hubka la isticmaalayay uu ku qarwayay habeena badan, waxaana uu yidhi mar waxa ay ridayeen waxa aanan garan karin sida aan u sharaxo. waxa uu ahaa sida hir dhawaaq aad u xoog badan, si lama filaan ah waxa aan u dareemay sidii in madaxayga gudihiisa uu qarxayo. saamayntu waxay ahayd mid degdeg ah oo argagax leh. dhammaanteena sankeena dhiig ayaa ka yimid, qaarna dhiig bay matagayeen. dhulka ayaynu ku dhacnay annagoo aanu awoodin in aynu dhaqaaqno, mana aanan istaagi karin kadib markiina lagu riday hub dhawaqiisu aanu caadi ahayn, ayaa yiri qofka markhaatiga ah. aqalka cad ee Mareykanka isla markiiba kama uusan jawaabin su'aalaha ku saabsan in wadaagista qoraalka ay daabacday afayeen Colonel Levitt ay ku dul qortay weedha ah jooji waxa aad samaynayso oo akhritan, taasi oo ka dhigan in maamulku uu xaqiijinayo saxnaanta sheegashada markhaatiga indhihiisa oo ku arkay. sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Venezuela, qiyaastii 100 ka mid ah ciidamada ammaanka Venezuela ayaa lagu dilay weerarkii Janaayo 3 ee sanadkan 2026. ma cadda in dhimashadan ay sabab u ahayd hubka qarsoodiga ah. ila wareed hore oo ka tirsanaa sirdoonka Mareykanka ayaa u sheegay wargeyska New York Post in Mareykanku uu sanado badan haystay tiknoolajiyada hubka tamarta la hago amaba waxa loo yaqaano DEO. ila wareedku waxa ay xuseen in nidaamyo qarsoodi ah ay sababi karaan astaamo ay kamid yihiin dhiigbax, dhaqaaq la'aan, xanuun ama gubasho. kadib weerarkaasi waxa caddaatay in taageerayaasha Maduro fariintan ay direen ha isku labin adeer Sam oo loola jeedo Mareykanka. qof ilaalada kamid ahaa ee xogtani bixiyay ayaa waxa uu yiri waxaan digniin u dirayaa qof kasta oo u malaynaya in la dagaalami karo Mareykanka. wax fikrada kama haysataan, waxa ay awoodaan. wixii aan arkay kadib gabi ahaanba ma awoodi doono, mana doonayo in aan noqdo dhinaca kale ee ciyaarta. weerarku waxa uu gilgilay guud ahaan Latin America, gaar ahaan kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhawaan u ka digay in uu Mexico hadda liiska ku jirto oo uu ku soo dari doono. qof walba waxa uu ka hadlayaa arrintan. cidna ma rabto in ay marto wixii aan anagu soo marnay. wixii halkaani ka dhacay wax badan ayaa ay bedeli doonaan, mana ahan oo kaliya Venezuela balse guud ahaan gobolka oo dhan, ayaa uu yiri kuna soo gabagabeeyay hadalkiisa qofka markhaatiga ah ee la wareysanayay oo haybtiisa la qariyay. maxamed cabdirmaan HBN.